mas-uuliyiin heer deegaan ah uu hogaaminayay wasiirka xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed aadan oo ay ku weelinayeen wasiirka xafiiska biyaha dowlad deegaanka soomaalida injineer axmed miraad leli iyo maamulka gobolka doolo oo gaadhay xarunta degmada Galaade ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah mashaariicaha horumarineed ee ka socda degmadaasi. wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida mudane maxamed aadan, wasiirka xafiiska biyaha dowlad deegaanka soomaalida injineer axmed miraad leyli iyo gudoomiyaha maamulka gobolka doolo mudane cabdilaahi deeq xasan oo ku guda jira kormeerkoodii howlad ay kusoo mariyeen mashaariicaha horumarineed ee ka socda guud ahaanba degmooyinka gobolka doolo oo gaadhay degmadaasi ayaa u kuurgalay halka uu marayo nidaamka solar systemka cadceedda laga dhaliyo leydhka 24 saac, kaasi oona laga dhalin doono marka lasoo gebagabeeyo. iyo waxay sidoo kale soo kormeereen adeeg bixinta xarunta caafimaadka iyo qaabshaqeedka dhismaha haambiyoodka tuulada Miiro Farataag ee xukuumaddu ka wado aagaasi, iyagoona sidoo kale u kuurgalay mas-uuliyiintu habsami u socodka jidka jeyga ah ee isku xidha tuulada Cagaarweyne iyo Wardheer oo waqti xaadirkan dhismihiisu marayo caradhigada iyo baahinta wejiga koobaad, waxaana dhismaha jidkan hawshiisa wada xafiiska jidadka ee dowlad deegaanka soomaalida. dhinaca kale, mas-uuliyiinta ayaa gabagabadii kulan looga arrinsanayay dardargelinta howlaha shaqo iyo dhaadhicinta qorshayaasha xukuumadda iyo xisbiga iyo weliba sidoo kale dardargelinta shaqooyinka kala duwan la wadaagay, islamarkaasina tala bixinno iyo tusaaleyn siiyey kaabineedka maamulka degmadaasi oo ay kulan la qaateen. wasiirka xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka soomaalida injineer axmed miraad leyli oo warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida SRTV uga warbixiyey mashaariicaha horumarineed ee ka socda degmada Galaade ee gobolka doolo ayaa ka warbixiyey. kulley maalmahan waxaanu joognay gobolada Qorraxay iyo Doolo, waxaanu u joognay howlii kormeerka iyo taakuleenta hogaaminta heerarkeeda kala duwan, gaar ahaan dhaadhicinta hindisayaasha xisbiga barwaaqo hoos loogu dhaadhicinayay. maanta waxaanu joognaa degmada Galaade, waxaanu soo kormeernay mashaariicaha horumarineed ee ka socda degmada Galaade, sidoo kale xarumaha adeeg bixinta ee degmada Galaade. waxaana la qaadanay kulan hogaaminta degmada, gaar ahaan golaha fulinta ee degmada. waxaan soo kormeernay mashaariicda soo kormeernay waxaa ka mid ahaa dhismaha jid jay ah oo isku xirayay tuulooyin ka tirsan degmada Galaade iyo tuulooyin ka tirsan degmada Wardheer, oo runtii 30 kilomitir ahaa dhererkiisu. heerku markaa marayna waxay 50%. waxaan sar tusnay oo markii aan waqtiga heshiiska lala galay iyo xaaladiisa markaan oo qiimeynay, waxaanu isla garanay inay ka jirto dib u dhac loo baahan yahay insha Allah inay dedejiyaan muddooyinka dambe waqtiga loogu talagalay ay ku dhameeyaan mashruucaas. sidoo kale waxaan soo kormeernay mashruuc biyo-gelin ah oo ka socda tuulada Miiro Farataag oo ay wasaaraddu maalgelinayso, gaar ahaan barnaamijka Horn of Africa. biyo-gelintaas laftarkeedu xoogaa daahitaan ka jiray, muddadii lagu heshiiyey hore way ka dhammaatay. xoogaa waxaa loogu daray muddo kordhin baa loo sameeyey. muddadii loo kordhiyay hadda waxaa u dhiman muddo 2 bilood ah. waxaana kula dardaaranay muddada 2 bilood inay ku dhammaystiraan, isla mar ahaantaana bulshadu ay hesho adeegii biyaha. sidoo kale waxaanu kormeernay xarunta caafimaadka ee degmada Galaade, runtii ahayd xarun adeegyadii loogu talagalay bixinaysay. isla mar ahaantaana talooyinkii aan u haynayna waan la wadaagnay hogaaminta degmadu inay sixtaan u qaataan. ugu dambeyn waxaanu soo kormeernay xarunta loogu talagalay in laga dhaliyo korontada tamarta cadceedda la isticmaalay in la siiyo koronto degmada. runtii barnaamij aad u ballaaran oo degmadu ay kaga raysan doonto koronto la'aantii oo awoodda tamarta la isticmaali doono. runtiina aan isleenahay insha Allah ku dhamaado degmadina wax badan bay dhanka adeegga korontada ay siin doontaa. waxaan kulan la qaadanay hogaaminta golaha fulinta ee degmada, anagoo la dardaaranay isla mar ahaantaana la wadaagnay qorshayaashii aan wadnay qaabkii loo dhaadhicin lahaa iyo sidii ay faham looga wada qaadan lahaa midaysan, iyadoo isla wada fahansan yahayna hoos loogu dhaadhicin lahaa. waxaan rajeynayaa insha Allah muddooyinka dambe ay soo socdaan isbedel muuqda ay hogaamintu ay ka keeni doonto qaybahaas hindisayaasha xisbiga uu soo dhaadhiciyey. waxaan rajeynayaa insha Allah in isbedel muuqda inuu wada arki doono.
runtii waxa weeyaan waxaan u xoogga la saarayaa ahmiyadda gooni ah la siinayaa sidii ay bulshadeenu loo gaari lahaa isku filnaansho oo looga bixi lahaa ku tiirsanaanta marar badan dadkeena bulshadeena waxaa la baray in wax loo qaybiyo gacanta ay hoorsadaan inagoo haysano deegaan kheyraad badan leh isla marhaantaana haddaynu si fiican nooga faa'iidaysano isku filnaan karno marka waxyaaba ahmiyadda gaarka la siinayo waxaa kamid ah inaynu isku filnaano sidoo kale waxaa xoogga la saaraya laftirkeeda in shaqo abuurka dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada kasoo qalin jabisay kulliyadaha iyo xirfadaha kala duwan soo baratay in ahmiyad gooni ah la siiyo taageero rasmina la siiyo shirkadaha yararka ee laftirkoodu inay kor u kacaan si isku filnaansho u gaaraan hindisayaashan waxaa iyadana qayb ka ah in sidoo kale waxbarashada ahmiyad gooni ah la siiyo oo degmooyinku guud ahaan ay weeraan iskuulaadka xarumaha ku yaalo kale ay bilicdooda wax ka bedelaan tayada kor loo qaado aynu tayada waxbarashada inagoo iskaashanayna bulshadeennii dhammaan cid walba kaalinta ay leedahay inay qaadato in isbedel muuqdan ka wada keeno. Waad mahadsantihiin.